wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa socdaalka u kuurgalka xaaladda adag ee abaaraha ku tagay deegaanada ay saamaysay abaarta ba'an ee ka taagan inta badan geyiga ay Soomaalidu degto waxaana kamid ah deegaanada ay socdaalka ku tageen madaxda xisbiga wadani Qoryaale Warcibraan Shanshacade balle calanle qorulugud coodanle bilidhiig dharyelay dhagax dheer dhoqoshay bilcille duruqsi iyo deegaanada hoos yimaada mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo hore qayb laxaad la uga qaatay taakulaynta dadka ay abaaruhu haleeleen ayaa cunto bisil u qaybiyay dadka ku dhaqan deegaanada ay socdaalka ku marayeen waxaana la hadlay inta badan dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbigaasi waxaana kamid ah hadaladoodii dadka reer Soomaaliland ee abaartu haleeshay ee ka soo qaxay gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer marka dhammaan dadka abaartu keentay iyo dadka deegaankaba waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay madar khayr qaba inoo keeno oo ilaahay abaarta inaga jabiyo oo mid degdeg inoo keeno oo mid aan xoolaha iyo dadka inta waxba yeelin inoo keeno waxaan doonaynaa inaanu qaranka kala qayb qaadano oo dareenka iyagana u muujino shacbiga abaaraysan oo aanu indhaha iyaga ku soo aragno safarkii aanu maanta soo galnay waxaanu soo aragnay dhibaatadu intay leegtay dadka dhibta haysta xoolaha dhintay faraha badan baan soo aragnay iyadoo ay habeen tahay oo runtii aanan filaynin sida ay soo abaabusheen aad noo soo dhaweyseen baan idinka mahadnaqaynaa ujeedada safarka iyagu waxa ay inaan xoogaal u noqono xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soconayun duruufta abaarta iyo dadka xaaladiisa inaan xoogaal u noqono soo marro soo eegno dhibta la qaybsano wixii aan awoodnana aan ku biirino wixii aan awoodnayna guddiga abaarana waan u dhignay wixii kale ee suurtagalana insha Allah tacaala kulliba waa samayn doonaa umaanaan socon hawlihii xisbiga imika umaanaan socon abaarta iyo gurmadkeedaan u soconay waqtiguna runtii waa waqti gaabsi oo dhul badan oo deegaan badanna waanu maraynaa insha Allah tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta inaga jabiyo xoolaha iyo dadkaba in ilaahay inaga badbaadiyo wafdigeegan uu hogaaminayo gudoomiyuhu iyo hoggaanka xisbigu waxa weeye taanu soo baxnay wixii aanu anagu haynay waxaanu ku soo dhaafnay gobolka saanu ku soo dhaafnayna waxa weeye in saddexda gobolba loo qaybiyo dhibaatada dad baa lagaga yimid guryihii jilicsan ugu talagalnay inaan u kuurgalno dad yowga dhibaataysan ay abaaruhu aafeeyeen guddida qaranka ee gobolka 2,000 oo gadbadood oo raashina iyo 100 booyadooda biyo ah marka haddii la yiraahdo waxa loo qaybinayaa saddexda gobol dadkoodii ay eeridan joogaan weydin ma doona biyo iyo raashinkuba inay wax noo keena biyo iyo baadba oo u baahna waanu jilcisanay waana u mahad celinayna waana u ducaynayna laakiin wax horena ma soo gaadhin maanta caawimada ka horeysa maana wax ka horeeya abaarta ka taagan dalalka geeska Afrika qaarkood ayaa ka dhalatay gugiyo yaraaday iyo dayrtii oo la waayay taasoo sababtay inuu meesha ka baxo baadkii ay xooluhu cuni jireen biyihiina yaraadaan isla markaana halis gelisay bulshada ku dhaqan deegaanada ay abaartu saamaysay Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Bro